kalgacalka nebi maxamed la jeclaadana waa min addiin bale wuxuu gaadhsiisan yahay in lagu amray aabbaha iyo hooyada iyo intaad dhashayba inaad isaga ka horumariso ka jeceshahay inaad nebiga jeclaato macnaheedu waxa weeyaan warkiisu inuu kaala weynaado cid kastoo kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso kamaalu liimaan ama iimaanka dhammaystirankiisuna wuxuu ku xidhan yahay sidaynu nebiga u jecelnay calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisana waxyaabaha tilmaamo waxaa ka mid ah qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah inaynu isaga raacno nebigu salligiisu waa cibaada qofkii badsan kare kaste muslime ha badsado saxaabi baa u yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo markaan ducaysanayo ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhow baan adiga ka dhiga haddaad doonto ka badsa buu yidhi wuu soo waday nus baan ka dhiga haddaad doonto ka badso wuu soo waday markii dambe yidhi haddaad ducadoo dhan ba adiga salligaagaan ka dhigi haddaad ka wada dhigta buu nebigu yidhi hammigaagaa ilaahay kaaga fillaanaya idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsadaa waa min addiin hamiga alla kaaga warwar adduunoo dhan baa kaa ba'aya haddii problem kastaa ku qabsado intaad halkaa fadhiisato nebiga salligiisa aad badsato uu kaa tegaya soo qolada psychologigoydun ma yidhahdaan waxaa sameeya kan samee halkaa haddaad fadhiisato ama tasbiixsato ama salli nebi qaado waa kaa tegaya idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diintuu ka mid yahay